يدي أدا مريه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومركل عشرتين أونلاين كها كبه شركة Global International College كويا لي مقالة لاسانود حرنت قول كسول حنلنا أرضي سود وهذا وحن إن شاء الله ما أنت أنكو بلا بدون 10 كينا lesson كين لبات algebraic equation أنت عن 10 كين ما تقول محربة لبس سؤال إن شاء الله درو feedback أرضي دهان مع الوير فهم ويني بدن كودو أرضي قارر كم إذا نايكس الشقيين أنا ربنا دبينا ويرمي الحسن لبدأ السؤال ذو حي هايين سؤال السجالات أودي من سيدة طيب waxaan shalay sheegnay in equation la yiraahdo qaybtan left hand side qaybta bidix iyo right hand side qaybta midig way variable kan iyo constant-gan ayaa maanta isdaba mariyay oo position-adii lahaayeen baa isdaba marsan sidaa daraaddeed constant-ga ma iska wareejinaysaa waxaad u wareejinaysaa numberka kale constant-ga variable kan calaamadiisu ma bedelayso maadaama isaga aan la wareejin calaamadiisu left hand side buu yaalaa dhinaca bidix buu yaalaa weliba dhinaca bidix buu yaalaa wankaasina isma bedelayo oo right hand side buu yaalaa laakiin waxa wareegaya waa 13 oo minus buu qaadanaya okay minus 6x labadan kala jar waa minus 12 x baan qiimaheeda u baahanahay minus 6 baa ku dhufsan oo isku dhufshan maxaa ka soo horjeedi jirtay division halkana minus 6 baad u qaybinaysaa xaggana minus 6 baad u qaybinaysaa intani waa isla baxday x waxay la mid tahay marka labada minus waa isla baxeen plus bay noqonayaan 12 marka loo qayb maxay soo boodaya 2 baa soo boodaysa su'aashaasina saas ay jawaabteedu ahayd su'aasha 10aad ee x keeni hore okay su'aasha 10aad sideen ahayd waxaan rabnaa inaan soo wareejino wixii constant-iya sagaalkaas constant-iya 7 ka soo wareeji sagaalkaas markuu soo wareego wuxuu soo wareegay left hand side muxuu qaadanayaa plus buu tahay minus buu qaadan doonaa 7 booskiisu yaala sagaalka la soo wareejinaya minus 9 bay noqonaysaa kan ma wareegina waa minus 3m oo right hand side buu yaala hadan right hand side buu yaala labadan bad kala jaraysaa marka waa minus 3 equal minus 3m m baa qiimadeeda u baahanahay xaggana minus 3 u qaybi xaggana minus 3 u qaybi intana waa isla baxeen calaamadaana isla baxeen maxaa m soo booday marka m waxay soo booday labada calaamad waa isla baxeen plus soo booday 3 marka loo qayb waxa soo baxaya hal ayaa marka soo boodaya taasina jawaabteedu sidaas ay sax ku ahayd ardayda ka soo jawaabay maxsiin ardayda kale ka soo jawaabina aan filayaa hadda inaad fahanteen way aanu gudubno casharkeena maanta marka ila soo okay casharkeena maanta hal example 2 oo ah lesson 2 solve this equation xalina su'aalahan baa xalinayna su'aalahani kuyaan shalay dirnay waxba saas kama duwana koowaad sidan bay ku waranaysaa waxaan rabnaa qiimaha x ina soo saarno way san qiimaha x soo saarno tirada constant-ga oo calaamada plus-ka halka ku wadata baa iska soo wareejinaysaa hadaas 51 minus 3 baad haysaa equal 8x laba marka laga jar maxaa soo boodaya 48 plus ayaa soo boodaysa equal 8x x baan u baahanahay xaggana 8 u qaybi xaggana 8 u qaybi x maxay la mid tahay marka 48 marka 8 loo qaybi maxaa soo boodaysa 6 ayay noqonaysaa jawaabtaasina saas ay ku soo baxday qiimaha x wadna checkimi kartaa balance ku dayno inaan checkino way waxaan rabnaa left hand side-ka oo continue koowa iyo right hand side-ku inay isla ekaadaan way continue koow equal 3 plus 8x x qiimaheedu maxay haysatay marka x qiimaheedu ku bedelanaysa oo ah 6 way continue koow equal 3 lagu daray labada isku dhuf waa 48 continue koow waxay leegtahay labada sugi continue koow way leegtahay sababtaas waxaan filayaa inay proof garaysan tahay baan filayaa continue koow ay marka ay leegtahay way session oranaysaa 4 plus 5a equal 90 so saar find the value of a qiima a baan rabnaa okay 4 kan wuxuu wataa plus saddex markuu wuxuu qaadanayaa minus hadaas marka 5a element 19 ka wareeji minus 4 buu noqonayaa 5a maxay leegtahay labadan kala jar waa imisa waa 5 iyo 10 halkana 5 u qaybi xagana 5 u qaybi a maxay leegtahay waxay soo boodaysaa maxay 3 ayay soo boodaysaa jawaabtaasina qiimihii a wuxuu noo soo booday 3 iskaankana wada marin kartaa in xisaabtan ay saxan tahay iyo in kala adoo raacaya processkii ayna soo qaadanay ee ahaa
balance equation way سؤال في أرانسا واقع 9 plus 2r equals 16 waxaan u baahanahay r taasaan u baahanahay sagaalkaas ka weydiin waxa dhahaysaa 2r equals 16 ka wareeji minus 9 2r waxa labadan kala jar waxay soo boodaysaa 7 ayay markaas soo boodaysaa xagana 2 qaybi xagana 2 qaybi r waxay la mid tahay 7 of 2 ayay leeg tahay sidaa daraadeed algebraic equation-ka waa lagama baahna wax decimal ama bounty lagama baahna waxa u deynaysaa 7 of 2 haddii aad fududeyn kartidna waa sii fududeyn kartaa haddaysan fududeysmina halkaas ayaad markaa aad kaga tegaysaa su-aasheena ka xigta waayo su-aasheena afraad ama d waxaan rabnaa inaan soo saarno qiimaha d baan rabnaa soo saarno sidaan qiimaha d soo saarno minus 8 kaas ka wareejiyo constant ugu soo wareeji muxuu qaadanayaa markuu minus 8 markuu wareego ee uu aado left hand side plus buu qaadan doonaa waa dhahaysaa 2 plus 8 equal 3d baa dhahaysaa 3d way labada sugi waa 10 equal 3d d baan u baahanahay xagana 3 u qaybi xagana 3 u qaybi d waxay la mid tahay 10 over 3 ayadana halkaas baad kaga tegaysaa lama sii fududeyn karo halkaa lagama sii fududeyn karo wax decimal la waxba gelinin jawaabta saxda ah intaas ayay ku egtahay aan qaadano su-aasheena fikirta su-aasheena e ama su-aasheena shanaad oranaysaa maanta bracket bay xisaabta wata x bracket bay ku jirtaa okay xeerkan badmaas baad tixgelinaysaa labadan haddii sugeyn kartid sugi haddii aad sugeyn karna bracket dibadda taala ayaad kaga saaraysaa bracketka okay labadan isku dhifo waa 2x labadan isku dhifo waa 10 equal 18 xisaabteeni caadiga ah inoo soo baxda kan iska wareeji markii waxa dhahaysaa 2x equal 18 markuu wareego muxuu qaadanayaa minus buu qaadanayaa waayo 2x waxay la mid tahay labadan kala jar waa 8 xagana 2 qaybi xagana 2 qaybi x qiimadeedu waxay soo boodaysaa x qiimadeedu waxay soo boodaysaa 4 ayay markaa soo boodaysaa su-aashaas jawaabteeda saas ayaan ku helnay wayna checking karnaayo checking min marin karnaa bal aan checking markii bracket ka wadato hadaasaa 2 bracket halkaas ma artaan soo x maaha qiimaha soo saarta gashanaysaa waa 4 plus 5 equal 18 intan waa inay 18 leekaataa marka ugu horeysa xeerka badma isticmaalo labada sugi waa 2 bracket waa 9 equal 18 labadan isku dhifo waa 18 ma leegta ha waa leegta xisaabteen waa maxay markaa waa balance saadradid waa inoo saxanta su-aasha ugu dambaysa tusaalayaasheena waxaan rabnaa qiimaha x ina soo saarno qiimaha x aan soo saarno maanta bracket baa wata bracketka xeerka badmaas inuu tixgelinayna haddii aan ku bracket giisa aad xalin kartid waad xalin kartaa oo tusaale halka haddii labadan la kala jari karo waad kala jaraysaa haddaysan kala jarmayna tirada dabada taala ama calaamadaha ahaato ama tiro ahaatee baad kaga saaraysaa bracketka hadda waxaan aragnaa labadan tiro gudaha ku jira inaysan aysan xalismayn oo ay yihiin different variable saa darteed waxaan u baahannahay inaan bracket meesha ka saarno oo tiradan dabada taala aan kaga saarno kan siisa soo aadanaysa markaa ayaa labadan isku dhifo waa 3x ayaa 3 ka ku dhifo waa -9 maxaan u baahnaa qiimaha x waan u baahnaa soo ma 3 gaas adiga wareejinaysaa muxuu wataa plus muxuu qaadan doonaa minus muxuu qaadan doonaa hadda 15 plus 9 equal 3x labada marka la sugayo imisa waa 24 equal 3x x man qiimaha u baahnaa xagana 3 u qaybi xagana 3 u qaybi x maxay soo boodaysaa waa 8 ayay marka soo boodaysaa checking-keedana adaan ku daynaya halkaas insha Allah maanta tusaalayaasheena aan ku joojinayna waxaan sugnaa arday waa maxay waa exercise jawaabaha soo dirayna waa mahadsan yihiin intii aan soo dirayna waxaan leenahay ardayay dadaal sameeya oo isku daya feedback inaad soo celisaan insha Allah khayr badan rajaynaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi